madaxweyne waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaynu joogno halkii uu ka socday daamurka jidka dheer ee wadada Ceerigaabo ee aad dhagax dhigtay dhowr sanadood ka hor oo ka soo bilaabmay Ceerigaabo xaggaana ka soo bilaabmay inaaf madoobe sida ay sheegeen madaxda wadada gacanta ku haysa hadda waxaynu joognaa kal sheekh waxaana ceelaf weyn inoo jiraa dhowr iyo 10 kiiloomitir ilaa Ceerigaabo ilaa halka aynu joognaa waa laami aan kala gool ilaa iyo marka laga soo bilaabo meesha la yiraahdo inaaf madoobe iyo ilaa waridaadna waxa weeye isna waa laami ilaa inta u dhaxaysana waxa weeye marka laga reebo 20 kiiloomitir waa wado jidcad oo carrakaawada isku xidhan tahay in yaroo dhaxo saraara ayaa ka dhiman shaqadina way socotaa waxa ka soo dhex gashay abaarta iyo biyo dhaamiska iyo hawsha laakiin si xawlo aad iyo aad u dardar bay ku socotay halka waxaan anigu soo maray markii la magacaabay December 12 bilood safarkii ugu horeeyay bay ahayd waxaan soo maray iyadoo wadada jidcadaha ay marayso ceelaf weyn halka ka shaqeysa ee ay taalo meesha la yiraahdo daamurku yahay kiiloomitir ama 2 kiiloomitir magaalada dhinaceeda iyadoo mar daamurkan iminka aynu halkan taagannahay halkeeda aanu istaagnay xafladda ku qabanayna waxay ahayd meel 14 kiiloomitir u jirta Ceerigaabo waxa la yiraahdaa ceel dable waa meesha godka ee bundada yar leh dhirta quraacda leh halkaas aanu taagnay maantana waxay maraysaa halka iminka aynu marayno waa ceelaf weyn dusha waxa weeyaan waa 12 bilood markii aan marayay meesha la yiraahdo yufle waana markaa wadadu soo gaadhin oo aan hadal hayn oo buskaas oo kale ah oo yufle waa magaalada Ceerigaabo wax xigtiisa garanaysa sidoo kale odayaashii deegaanka oo dhamay igu soo shireen waxay igu yiraahdeen waylaha ninka hadlayay mikrofoonka haystay YouTube-ka fiidiyoda ku arkaysaan saxaafadiina joogtay waxa maayarka yufle waxa la yiraahdaa mijir hadalkiisi waxa kamid ahaa waliba waxa laga yaabaa in dib loo daawado wadada Ceerigaabo buu yiri wasiir xaggan uun bay naga xigtaa oo sanad baan u maqal ama waadna soo dhaafin doontaa wada shaqaysay noqon ama de sidii hore loo horeeyay hore u shaqayn jiray uun bay Ceerigaabo ka soo socotaa una la oran doona iminka ku amaani mayno buri waxana kale ku sheegi maynee ama wadadu wayna soo dhaafin oo waad shaqayn ama sida horunba halkaas in lagu sheegi doono oran Ceerigaabo ay soo socota waa taariikh oo record gareysanta way duubanta 3 bilood kadib baan maray iyadoo soo dhaaftay dabadeedna wuxuu yiri balantii waad ka soo baxday labadaba way duubeen TV-da waa laga siiday balantii waad ka soo baxday laakiin firikaama qodna iminkana waynu sii mari doonaa odayaashii marka waxa weeyaan wadadu taariikhdaas ay leedahay marka iminka injineeradu sharxayaan ay leeyihiin فيرس لاير halkaas uu maraya finalkii baa maraya waa aragtaan imka intay wadada ka sareyso halkan waxay ka sareysaa mitri halkan in maranayo dheeraad 5 layer baa la dhigay waxa way 5 layer baa la isku saaraya daamirkii baa ku xigo imka aynu marayno waa wado aad hawl adag oo runtii hawsheedu ay adag tahay anigu maalintii ugu horeysaan imi runtii dad badan baa igu canaantay war waxan maxaad u sheegi weyd laakiin wuxuu markay dhismo tahay madaxweyne ismu waa wax la taaban karo imka guri hadda dhisto gurigu uu dhismay weey qofna oran ma gurigii muu dhismay way waa la imanaya waa la gelaya waa la seexanaya waa loo hoyanaya laakiin waxa laga xariibsanaa madaxweyne media iyo faanfaan badan iyo faataadug badan ma sameeyay waxaan ku bedelay inay shaqo socoto runtii dadka ka shaqeynaya madaxda ka shaqeynaysa halkan joogtay ee dhaxamaha joogtay ee iminka engineerkii iyo project managerku inala hadlayeen iyo dhammaan shaqaalahoodii iyo staffkood aad bay naf iyo maal u duldhigeen waxba kala ma hadhin habeen iyo maalin waxa hawsha madaxweyne waliba noo dheeraa 700 iyo dheeraadka daamurka ee 14 kiiloomitir markana 100 iyo dheeraad maraysa waxa noo dheeraa deyn oo ay tahay runtii in la sheego oo aan la qarin madaxweyne waxaana lagu wareejiyay oo garhka la geliyay 5 milyan lacag gaaraysa oo deyna oo maanta ka hor aanan ka reerabaysiisu dhiibaan la baxnaa 5 milyan wadadii oo dhowr iyo 10 kiiloomitir gabigeeduba socotay iyadoo la doonayo in ilaa Ceerigaabo la isku xidho in taariikhdii iyo dhagaxdhigii iyo legacy-gaagii la dhameystiro oo 5 milyan oo deynana la dhiibay waxaan isleeyahay dawaba la carari lahaa ma haddaan 5 milyan oo dollar in ka badan daamirku 70% deyn buu ahaa daamirka wadada la dhigay welina waana lagu leeyahay waxa runtii ana aad ugu mahad celinaya madaxweyne wasiirka maaliyadda suti gaashaan marka hawsha insha Allah saas wanaagsan bay ku socotaa maalintii 3 week 4 week hor deymankii qaar baan isku xalilin bangiga bad laha dadka loo shicib baa laha ummadan baa lahayd waxa la yaab leh iyadoo lacag yar naloo soo daayay oo shaqaali tuban yahay baadeen hore naloo qabsaday oo 2015 ka erligiisa yaan haddana waxaanu maqlaynay iyadoo la leeyahay wadada anaga dhameynay anaga deenkiina cagaan dhoobadii baan cagaa kula jiraa runtii shaqaalaha dhimo ogaan project managerka ayaa bangiga taagnaa ila soo hadlay ninka admin finance-ka noo qaabilsanay Saciid Jaamac leeyahay
والعكتي دين بالله قبص ذي بيل هذين أنا أدق أنا تسوق علي ده أنا قال ورنا لقى فرف أيه هذا ندي وحس كسعودي مركز لكن وحول بام الحوينات كي جمع يسوي حوي ما أنت وضد هالكاسة مريسا إن شاء الله هو يجيب بس أنت واحد جديد كهالكات شو دور يلا باتن دور يطمن اسكرجوين وكوا وين يمكن كان يقص التوجه شن يلا تنكتنا أفر لا تنكت أنت وانسوي بني عقف وأنا سوي بني كنت تاج كوا نوع ولا عقف يدا كم ده وأنا سوي بني بويده بيها يمكن حاجة تاج هو مركز الله دور يكنت جديد كلنا عزوك السعودية الحمد لله رب العالمين إلهي نقوم كشفين hawsha aad noo igmatay waxaan kala doonayaa inuu sheego wadadanu waxay ku jirtay barnaamijka xisb waa taariikhdii madaxweyne waa taariikhdii xisbiga kulmiye iyadoo aan dawladaba mucaarad yahay barnaamijkeeda lagu qoray bugaagtiina waa haystaan oo arki doontaan maalin horena waan sheegay madaxweynaha anagoo 2008kii la shirayna mucaarad reer anagoo mucaarad oo la shirayna odayaal reer Ceerigaabo ayuu madaxweynuhu wuxuu ku yiri wadada Ceerigaabo waan dhisayaa ama aan China la kaashado hadallada word by word sidoo lahaaway ama aan Jarmal la kaashado wadada waan dhisayaa haddaan cid kale aan la kaashado waa inaan aaba bacdigaya marka waa taariikhdii madaxweynaha halkan iminka waxa ku jirta madaxweyne ku socota buurta aynu ku soconay la ka soo jeeda qabyatira la yiraahdo waa arki doontaa waxa ku xardhan farwaaweyn oo buurta lagu qoray oo ay ku taalo Silaayo Road taariikhdeeduna halkaas ay ku taala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته